Daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan sheekooyinkeenii taxanaha inoo ahayd. Maanta waxaan uga hadlaynaa qayb libaax. Habar dugaag baa maalin maalmaha ka mid ah waxa ay isugu yimaadeen raqda hal ay soo ugaarsadeen si ay u qaybsadaan hilbihii hasha. Ayaa libaax oo ahaa boqorkii habar dugaag oo waraabo kolkaa barbar taagnaa ku yiri, waraabow inoo qaybi hilbaha. Waraabihii baa inta uu raqdii dul tegay yiri, boqorow hilbaha ma qayb mise qayb? Qayb adiga iska leh, qaybta kalese habar dugaag baa iska leh. Kolkii uu halkaa waraabihii yiri buu libaaxii hadalkaas qoonsaday, isagoo qawasan qaybta uu waraabuhu isaga u qoondeeyay. Caradii ayuu dharbaaxyo ilkaga tuuray oo uu hoor ka soo qubay. Libaax ayaa mar kale waxa uu soo qabtay dayo, waxa uuna ku yiri adiguna dayoy qaybi hilbahaasi. Iyada oo goobjoog u ahayd nabaradii waraabo soo gaarayna oo cabsanaysa ayay tiri, libaaxow hilbaha ma bar mise bar? Bar adiga iska leh. Barka soo haray libaaxow ma waax mise waax? Waax adiga iska leh. Waaxda soo harayna libaaxow hasha ma falad mise falad? Falad adiga iska leh. Faladka soo harayna libaaxow hasha ma ribic mise ribic? Ribic adiga ayaa leh. Ribica soo harayna libaaxow kugu darayee neefkii wada qaado. Halkaas markii ay marayso ayaa inta uu libaaxii hawsha ka qoslay buu ku yiri, adigan dayoy yaa ku baray hab qaybinta wanaagsan. Iyadoon isdhibin bay dayadii waxa ay ugu warcelisay, tii isha cali ka laalaada ayaan uun cashirka ku bartay. Haddaba sheekadan ayaa waxa ay ina tusinaysaa ama ay ina baraysaa kolka aad joogto goob cadowgaagu ku badan yahay. Haddii uu ku yiraahdo hoo waxay noo qaybi, in ay wanaagsan tahay cadka halka u badan inaad isagu siiso. Haddaba halkaas ha noo joogto sheekadii taxanaha ahayd. Daawada waxaan kaa codsanaynaa inaad noo sii sheer garayso oo aad leegtana noo taabato. Mahadsanidin.